shirkaasi wuxuu ku soo dhamaaday runtii wax wanaagsan lama rabo wax daran in la sheego ummadda Soomaaliyeed waa in loo sheego wax wanaagsanna waxay ahayd in madaxda qaranka isu timaado inay tashato inay wada hadasho inay iscalool xaarato haddii ay jirto cabasho in la isu sheego annagu waxa aan soo jeedinay in shirkaas looga hadlo arrimaha amniga bacdama amniga uu noo yahay muhiimadda koowaad dawlad goboleedyada madaxdoodana ay qayb ka yihiin National Security Council arrintaasi waa lagu diiday waxa la yiri waxa laga hadlayaa marka hore siyaasadda laga heshiiyo ma xuma siyaasadda laga heshiiyo macnaheedu waxay tahay waa dood furan iyadoo isaas tahay dood furan uma inandeynin waxaan qaadanay mawduucyo muhiim ah oo loo baahan yahay in laga wada hadlo markii aan meeshii isugu nimid oo la yiri waxa laga hadlayaa siyaasadda guud ee dalka iyo sidii loo wada shaqeyn lahaa waa arrin fiican weey waa la iscalool xartay waa la wada hadlay qof walba fikirkiisu maaragtay keenay waa kala qaadanay fikradii Prime Minister wuxuu keenay qorshihii iyo wixii loo baahnaa in laga hadlo wuxuu keenay dhowr shuruuc hindisa sharciyeedyo loo baahan yahay inaan kala tashan iyaga oo go'aan wadareed laga gaaro waxay ku bilaabeen waxa loo baahan yahay madal iyo forum yaa loo baahan yahay waxuma in la wada tashado laakiin forumku muxuu ku dhisan yahay mi structure ayuu leeyahay hadduu structure leeyahay waa inuu sharci leeyahay maxaa yeelay structure duu leeyahay waa inuu gudoomiye leeyahay waa inuu secretary leeyahay annagoo tixraacayna dastuurka qodobkiisa 52 oo ka hadlaya xiriirka wada shaqaynta dawlad goboleedyada iyo dawladda federaalka ah waa sax in xiriir joogto ah oo iskaashi ah la yeesho oo sanadkii mar la kulmo laakiin meel ay kaga taalo golo in la sameeyo kuma ay jirto marka waxaan ku talinay in mar walba la isu yimaado annagoo wada tashanayna laakiin aan la sameeynin madal maxaa yeelay madal waa la soo arkay hadday wanaagsaneed iyo haddaysan wanaagsaneyn labadaba arrintaasi waan ugu yaraadkaatay waxaan u gudubnay doorashooyinka waxay qabaan walaalahay waxay qabaan in dib loo soo celiyo oo gacantooda lagu soo celiyo hadda doorashadan waxaa looga hadlay baydhabo oo si fiican looga munaaqashooday kulligeen aan wada siixnay modelkii electionkaas uu noqon lahaa wixii technicality ahna waxay u taallaa golaha shacabka u taallaa golaha shacabkana iyaguna waxay ku leeyihiin dawlad goboleedyadu dad matalaya wixii loo baahan yahay in la bedelo waxaan ku niri halkaas ha laga saxo annagu haddii aan keennay in doorashadu ay noqoto qof iyo cod ummadda Soomaaliyeedna aan awooddoodii aan gacantooda ku soo celinayno wixii hadda ka dambeeya waxaa iska leh sharciyeynteeda golaha shacabka iska leh idinku bacdama aad ku leedihiin wakiilo u soo sheega wakiiladiina sida ay wax idinla tahay la wadaaga arrintaasna xoogaa way nagu yaraadkaatay waxaan u gudubnay arrin kale oo ka jirta galmudug arrinta galmudug waxa aanu ku talinay in dib u heshiisiin laga sameeyo markii la weydiistay maxaa la yidhaahdaa extension ama waqti kororsi waxaanu ku nidhi waqti kororsi waxa weeye waxaa ka horreeya horta process in la maro dawlad goboleedyadii kulli waa nagu raaceen madaxweynaha dawlad goboleedka galmudugna waa nagu raacay laakiin markii uu tashi geliyey waa isbeddelay annagu ujeeddadeen waxay ahayd process in la geliyo dib u heshiisiin laga bilaabo kadibna doorasho loo gudbo runtii annagu waa isku daynay in aan si kasta aan u muujinno inaan diyaar u nahay wada shaqayn iyo iskaashi sax ah sidaad og tihiin wax yar kaftan aan ku darsadeen sidaad og tihiin qofku hadduu xanuunsan yahay 3 process yuu maraa 3 phases 3 waji maraa waji waa inuu aqbalo horta inuu xanuunsan yahay oo cisbitaalka aado oo lugihiisa ku dhaqaaqo ama la geeyo meesha uu yiraahdo waxaan u baahanahay xaaladda inaan ogaado stage-ka labaad ama wajiga labaad waa in la fiiriyo xaaladiisa cudurku qabo iyo xaaladda uu ku jiro sidee
wuxun tahay ama sida loo daaweyn karo diagnosis ayaa la yidhahdaa qaybta saddexaad waxa weeye marka la ogaado cudurkiisa waxaa loo qoraa daawo ama prescription ayaa loo qoraa arrinta galmudug markaan ka hadlo arrimaha kale gaar weeye waa aragnay dhibka jira waa dhegaysanay diagnosis yaan samaynay oo waa baarnay waxaan ogaanay in loo baahan yahay in la wada hadlo dadka gobolka degan dib u heshiisiin loo sameeyo ka bacdina doorashadii la galo madaxweynaha walaalkay ma aqbalin daawadii ma qaadan marka hadda choiceku qofku markuu meel yimaado uu yidhaahdo waa xanuunsanahay la ogaado oo daawada la siiyo choiceka isagaas kale inuu qaato daawadii inuu diido laakiin haddii ladin yidhi galmudug lama xallin waa la xalliyey laakiin wakhti kororsi oo intaas ka badan waxaan u aragnay inay u baahan tahay dadka reer mudug iyagu inay ka gaaraan go'aanka inay ka gaaraan oo ay wada fadhiistaan oo ay wada hadlaan oo la heshiiyo ka bacdi process la galo election saas looga gudbo walaalayaal walaalayaal wakhti ku darsasho iyo wakhti kororsi ama extension runtii wax wanaagsan ma aha waxaana loo baahan yahay haddii wakhti qof walba la doortay wakhti uu weeg yahay hadduu yahay dawlad goboleed iyo hadduu yahay dawladda federaalka xaqiiqatan ma doonayno hal maalin in lagu daro maxaa yeelay waxay abuuraysaa kalsooni darro waxay noqonaysaa xarig furtay haddii qof loogu daro wax celin kara ma laha saas darteed ma aha wax qof gaarah loogu dan leeyahay laakiin waa inay noo noqoto xeer hadday tahay dawladda federaalka inaysan waxba ku darsan hal maalinna ku darsan hadday tahay dawlad goboleed hal maalin inaysan ku darsan qof alla qofkii markaas doonaya election uu ka qayb galo ha ogaado wakhtiga saxa oo electionka jira uu isku diyaariyo marka ummaddana kalsooni dhexdooda laga abuuro waxaan idiin sheegaynaa waan idiin caddaynaynaa annagu mar walba diyaar waxaan u nahay inaan ka shaqayno danta guud ee ummadda soomaaliyeed ma ka shaqaynayno dan gaara oo dalkaani dhibaato badan yuu soo geystay muddo dheer yuu soo ragaadiyey ummadda soomaaliyeed dan uma aha haddii madaxdu ay ka shaqayso dan gaara saas darteed waxaan u baahannahay kalsoonidiinna waxaan u baahannahay taageeradiinna waxaana ku heli karnaa taageeradiinna in aan wax walba idin caddeenno ama ha qaraaraato ama yaysan qaraaraan laakiin wax walba la caddeeyo wax walba siday yihiin loo caddeeyo dhallinyarada soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan idin leeyahay hambalyo caawa waxa weeye habeen taariikhi ah